waxaan u wanaagsan asxaabtayda qaaliga marka la barnaamijyada Excel-ka waxaan idin tusaadiyay ilaarado mar sida loo shaqeeyo concatenate-ka iyo la if function-ka labada function ee maanta idin tusaadiyay ilaarado markaas la socdo wanaagsan labadaas waxa weeyaan iminka concatenate-ka shaqeynayno iminka tusaale rooyo kala duwan ay ku qoran yihiin 1 2 3 ay ku kala qoran yihiin first name second name iyo last name waxay ku kala qoran yihiin seelal kala duwan bay ku qoran yihiin markaas hal seel sidii la isugu keeni lahaa ayaan halka idinku tusay marka koobaad markaas la socdo wanaagsan equal to yaan leenahay concatenate yaan leenahay saasaan dhahaynaa kan koobaad baan kalik leenahay koomaan leenahay double quotation baan furaynaa space baan siinaa double quotation baan leenahay koomaan haddana leenahay kan labaad baan ku dhufanaynaa koomaan leenahay double quotation baan leenahay space baan leenahay double quotation kan xidhaynaa koomaan leenahay kan saddexaad baan ku dhufanaynaa koomaan leenahay double quotation kan leenahay space baan siinay double quotation kadib bracketka ama parenthesis ka xidhaynaa saasoo noogu shaqeynaya ka dhigan tahay double quotation ka aan space ka dhexgelinay wax kale looma jeedo halkaas space si ay uga muuqdaan weeyaan haddana imika aan double quotationadan oo kale aan masaxno tusaale ahaan haddaan san u masaxno koomaha meesha ka baxaayo maxaa la dhahay space-ka meesha ayaa ka baxay ka dhigan tahay haddaan internet idhaahno imika tusaale concatenate haddaan idhaahno kan kooma kan haddaan idhaahno interskan idhaahno waxaa kasoo baxayso maxaa la idhahdaa waxaa baxay ka dhigan tahay ka koobaad sidiisii hore maadaama iyo sidii buu soo saar laakiin kuwa kale waxaa ka baxay koomii baa meesha ka tegay ka dhigan tahay inaad fahamteen baan malaynayaa markaas waxaa lagu daraa double quotation space comma halkan kalena double spacing double quotation space comma saas ayaa loo qoraa ka dhigan tahay saas iyo maxaa la dhahaa magaca sax oo saddexdii meelood ku kala yaal noqonaya markaas inaad fahamteen baan u malaynayaa haddana waxaan arkaynaa ka iftaan arkaynaa if qaabka loo shaqeeyo if conditional baa la yidhahdaa markaas waxyaabo kala sarreeya oo isku mid ahayn isku dhigmin qaabkii loogu shaqeyn lahaa ayay ka dhigan tahay if imika tusaale haddaan halkan hadday koorseedii yihiin qofkan ama ardaygan hadduu koorseedaan mid walba natiijadan ka keeno wixii konton ka badan maxaa la yidhahdaa pass ugu qor wixii intaa ka badan failed haddaan dhahno tusaale waxaan leenahay if natiijadani haddii ay u dhiganto ama ka weyn tahay konton waxaan leenahay comma double quotation pass inuu uu dhaafay iga dhigayaan leenahay koomaan leenahay wixii intaa ka baxsan double quotation failed baan leenahay kadib waxaan xidhaynaa parenthesis-ka ama bracketka kadib hoos ayaanu soo jiidaynaa hoos markaan usoo jiidno fail kon labadan leh waxay ka dhigantahay konton ay ka yaryihiin bay ka dhigantahay wixii konton ka badnaa pass iyuu noogu soo qoraya bay ka dhigantahay markaas if conditional baa la yidhaha waxyaabo kala badan qaabkay u kala badnaayeen ayaa lagaga shaqeeya bay ka dhigantahay waxaan u malaynaya inaad fahamteen aad iyo aad baad umahadsantihiin maalin wanaagsan iyaan idin rajana meel walba iyo goor walba aad joogtaan dhammaantiin asxaabtayda qaaliga